conference-gan aan kaga hadlayaa dhowr qodob dhowrka qodob insha Allah mid baan isku taagi doonaa haddii Allah wadare ogolaado waa wax ku saabsan deegaanka gobolka Sanaag ee Soomaaliya wuxuuna yahay baryahan dambe waxa wararka ama jirayba oo rasmi ahaa inuu jiro shir lagu qabanayo gobolka Sanaag magaalo madaxdiisa gaar ahaan Ceergaabo shirkaas oo loo bixiyay magac ah inay ku wada hadli doonaan beel ka mida beeraha ugu ballaaran ee dega gobolka Sanaag iyo Bari iyo Highland oo la leeyahay beeshaas iyo waxa ku wada hadli doona jamhuuriyadda kaligeed magacawday la magacaaday Somaliland marka koowaad shirka intaan ka hadlin waxaan rabaa inaan horta anigu Cabdi Xakiin ahaan ama dhooba ahaan aan isbari yeelo waxaan iska bari yeelayaa waxa jira warar rumaris ah oo muddooyinkii dambe dhulka lala wareegayay oo ummad badan loo sheegay oo ilaa media xataa la geliyay oo ahaa in uu dhoobo shirka ama Cabdi Xakiin uu ka yahay on board ama uu ka soo qayb gelayo ama uu shir uu wax ka og yahay oo wax ka ogol yahay oo wada ogol u yahay arrintaas waxaan caddaynayaa oo iska bari yeelayaa oo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland gaar ahaan shacabka gobolka Sanaag aan u sheegaya u caddaynaya meel kasta oo adduunka ay ka joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba shirkaas waxba inaanan anigu kala soconin kana ogeyn kana qayb ahayn kana mid ahayn kana mid noqon karin taas waa isbaryaalkayga dadkii loo sheegay inaan ka qayb ahay ama lagu yiri qayb buu ka yahay ama ka soo qayb gelayaa lagu yiri oo aan dadka aan metero ama anigu aan siyaasiga u ahay ka mid ah waxaan u caddaynayaa inaan arrinkaasi uu yahay dacaayad iyo provocation suuqa la geliyey oo waxba aanay ka jirinin ciddii doonta ha gashato anaa hadda odhan maayo ciddaasaa gelisay laakiin waxaan caddaynayaa waxba inaanay ka jirinin arrintaas iyada ah waa war cadsow maaha intaas qodobka intaas baan kaga tegaya oo waa isbariyaalka aan isbari yeelaya anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo markaa shirkaas waxaan ka aaminsanahay ama aan u arko anigu inuu yahay shir magiciisu ku habboon yahay in loo bixiyo ama loogu magac daro shirqoolka siyaasadeed in la yidhaahdo shirka magaciisa aniga waxaan u bixiyey shirqool siyaasadeed marka aan sharxo shirqool siyaasadeed sida uu yahay beeshaas la leeyahay Somaliland ayay wada shiri doonaa waa beesha aan sheegay meesha ay degto iyo deegaankeeda waa beesha ugu ballaaran ee gobolka Sanaag degta 5 degmo buu ka kooban yahay 3 ciidaa degta midna qayb bay ka degtay hore waxay u diideen oo ay iska bariyeeleen inay ka qayb noqdaan doorashooyinka Somaliland iyo diiwaangelintii ka horeysay doorashooyinka lagu codeynayo kaadhka lagu qaadanayo way diideen dadka shacabka gobolkaas degan wayna iska bariyeeleen si toos ayay u diideen waana tii sababtay inay waxba ku yeelan waayaan golaha baarlamaanka ama golaha shacabka ee jamhuuriyadda Soomaaliya dadkaasi mowqifkooda way caddeeyeen wuuna caddaan taasaana daliilo hadday yihiin dad ogol oo qayb ka ah Somaliland ama ku qanacsan waa la diiwaan gelin lahaa doorashadana ka qayb geli lahaayeen xildhibaano magacyaraana u soo bixi lahaa hortaasi waa wax lagu qanci karo oo cad oo proof ah sidaa la ajrigeed waxaan iminka shirka lagu sheegaya waxaan u aragnaa shir wax la soo dhoobdhoobay oo shirqool ah oo la rabo ama la doonayo in lagu xalaalaysto waxyaabaha qaybtood ama deegaanka qaybtii
waxaa dhinac ka ah dad shaqo tegey oo jamhuuriyaddaa u shaqo tegey oo sheeganaya magaca mandaqaddaas magacyo badan bay leeyihin siyaasiyiin baa ka mid ah qolo dilaaliina oo dhexe oo odayaala baa ka mid ah isimaa ka mid ah intuba way ku jiraan waxaan rabaa marka inaan u sheego shacabka deggan gobolladaas oo markii horena go'aankaas qaatay meel kastoo ay joogaan iyo meel kastoo ay ku sugan yihiin inuu shirkaasi yahay shirqoor siyaasadeed lagana qayb geli karin qaybna laga noqon karin laguna qanci karin ciddii tagta magacay doonto ha sheegato isim ha sheegato oday ha sheegato siyaasi ha sheegato ciddii tagtaa inaanay ku materin shacabka gobolladaa deggan oo go'aankooda hore u caddeeyo u muujiyo inaanay ku materin ee ay yihiin shakhsiyaad danahooda gaarkaa iyo maslaxadahooda gaarkaa u tegey waxaan kaloo weliba shacabka u sheegaya inay dadkaa calaamad saaraan dad ay saaraan magacay doonaan ha lahaadeen inay calaamad saaraan inaanay ka qayb ahaanin talada warsangeli inaanay ka qayb ahaanin talada mandaqadda shacabka dega ee magacaas leh inaanay ka qayb noqonin aaya ka tashigooda iyo markay danahooda ka tashanayan qayb inaanay ka noqonin waxaan kaloo rabaa waxaa jira qolyo isima sheeganaya isimku maaha wax xoog lagu noqdo mana aha wax siyaasad ku soo baxa mana aha wax isagu ismagacaaba isimku waa sharaftii iyo karaamadii shacabka ciddii ay saaraan ayaa sharfan oo karaamaysan waxaa la rabaa cidda marka isim sheeganaysa inay ogaato inay sharfan tahay ciddii marka iyadu sharafka iska qaado iska xayuubisaa dadka qori kuma hayso xoogna kuma wadi karto meelna xoog kuma geyn karto cidnana xoog kuma khasbi karto ciddii isku daydaa arrintaas oo isim magac sheeganaysa wax ha ogaato inay sharaftii iyo karaamadii ay isimka ku ahayd ay iska qaaday dibna aanay u heli doonin looguna sheegi doonin shacabkana waxaan u sheegayaa laguma magcaabi doono isim hadduu mid yahay iyo hadday laba noqdaan iyo hadday saddex noqdaan dadkaa ka soo jeeda oo shirkaa ka qayb gala ama hadda dabada ka wado riixayaanu ognahay sharaftii iyo karaamadii ay huwanaayeen ee isminimada ay ku sheeganayeen automatically waa iska xayuubiyeen waayo shir shirqool ah oo tuugo ah oo danaysi ah oo maslaxad ah weeye shirkaas waana shir la rabo inta dad yar lagu soo ururiyo oo dadkaa yar dadka wataa ay raalli ka yihiin la yidhaahdo mandate waxa shiray mandaqaddaas dadka deggan iyo qoladaa maamulkaa sheeganaysaa shiray kadibna mandate sidaa lagu bixiyo xalaalna maaha mana soconayso waxaana hadda aan ugu bashaaraynayaa inuu shir dhicisa noqon doono shir dhicisa oo aan loo dhammayn inuu noqon doono shacabkana waxaan u sheegayaa dal iyo debed jaaliyadaha debedda waxaan u sheegayaa inay hadlaan oo arrintaa ka hadlaan oo mawqifkooda caddeeyaan waxay ka qabaan shacabka gudaha jooga waxaan u sheegayaa inay hadlaan oo mudaharaadaan meel kastay joogaan oo muujiyaan mawqifkooda iyo waxa ay ka qabaan shirkaa shaqoolka siyaasadeeda kuwa isimada sheeganaya waxaan u sheegayaa wallaahi baydaan isimo u ahaan doonin waanigaa dhaartay inaydaan ahaan doonin haddii aad dadka meel aanay rabin iyo waxaanay ku qanacsanayn iyo waxaan loo dhammayn aad tidhaahdaan isimaanu ugu nahay oo magacoodaanu kaga qayb gelaynaa wallaahi ahaan maysaa waanigaa dhaartay inaydaan ahaan doonin waayo xoog cid isku haysataa ma jirto iyo xoog baan isim ku aanayaa socon mayso 4 jeeb oo 2 jeebna lala tago xagga Puntland oo wax lagaga soo gurto 2 jeebna la yimaado xagga Soomaaliya ama wax lagaga gurtaana wallahi inaanay socon doonin waanigaa dhaartay magac Ilaahay baan ku dhaartay inaanay socon doonin hadda waxbaa idin qoolane ma idinla tahay inaa isdaba qabataan hadday idin geli weydo warkaasi oo isdaba qaban weydaan ahaan maysaan isimo sharaf iyo karaamo laydin huwiyey oo shacabka sharaftiisa iyo karaamadiisa bay ahayd
waxaad xoog iyo xabad iyo qori ku noqoteen iyo khasab ma ahayn waa laydinka xayuubin ama idinkaaba hore isaga xayuubiyeyba oo hadda waxaad seetaan baaba iska yar saasaan idin leeyahay kuwa isimada sheeganaya odayaasha waxaan leeyahay odayaalow arrintiinu yay noqonin maalinba meeshii dab ka baxayo baan aadaya iyo dambanoolya dadka odayaal baad u tihiina sharaftiinna ilaashada oo karaamadiinna ilaashada oo ta dadka ilaaliya oo ta dalka ilaaliya oo aakhiradiinna ilaaliya odayaashana intaasaan leeyahay qolada jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay sidaas dal iyo dad laguma qancin karo qaabkaana wax looma qodax bixin karo loomana heshiin karo soomaaladu waxay ku mahmaadaa marka ceeladii heshiiso baa reer maadh caddaa waxaan idin leeyahay sidaa waxba idinku talmi maayaana giimnom tani urdo kale keena urdo kale la imaada shirku waa noqon karaa haddaad ka shaqaynaysaan dadka wada degan gobolka sanaag oo xataa hadda colaada ka dhex jiraan maslaxadooda iyo heshiisiintooda iyo say wada noolaanshahooda iyo dadkaa degaanka ay guryuhu isugu yaaliin wada noolaanshahooda iyo nabadka wada noolaanshahooda iyo degaankooda iyo hagaajintiisa iyo islaax hadduu noqdo ahlan wa sahlan shir wanaagsan waxaan ka hadlaynaa waa shir siyaasadeed taa hadday noqonayso waa wax fiican wixii intaa ka soo hadhay waa kufsi kufsina garac baa ku dhasha garacna looma aayo oo wallaahi looma aayo loona aayi maayo waxaan ku celinayaa hadalkaygana aan ku gebagabaynayaa dadka shacabka oo degan gobolladaasow dalka idinkaale taladiisana idinkaale haddaydaan idinku dayicin idinkaale ka hadlo mowqifkiina caddeeya waxaan si gaara ula sii hadlayaa jaaridaha dibadaha jooga oo laleeyahay qaybtood ma aqaan anigu meeshay ka yimaadeen wuxuu yidhi markii qaadirada qaatay xaggee iga dhaaf kuwa laleeyahay way ka soo qayb gelayaan oo ciddee ay uga soo qayb gelayaan iyo wax ma aanan garan karaynin way jiraan oo aanan hubinin haddii jiraan iyagana waxaan leeyahay ceeboobinina hadhicinina waa dhici sirkaasi hadhicinina mowqifka jaariyaduhu waa laga maarmaan inay caddeeyaan oo ka hadlaan meel kastay joogaan hadalkayga waxaan ku gebagabeynayaa oo kaga baxayaa shirkaasi waa shirqool siyaasadeed oo la soo maleegay dad yar baa ka tashaday taladiisana leh waxaana rabaa dal iyo dad in lagu shirqoolo yuu inaga suurtogelin shacabka halkaa degow yuu inaga suurtogelin waxaynu ku jirana maaha waxaynu shuqul ku leenahayna maaha waana muhiim mowqifkaana inaynu caddaynaa aniguna kaygii waan caddeeyey waana isbari yeelay allaahuma hal ballaqtu hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu